AI maxay dunida ku soo kordhisay faa'iido mise khasaaro maxay tahay cabsida laga qabo artificial intelligence-ga saameyn noocee ah ayuu inagu leeyahay su'aalahaas iyo su'aalo kale ayaan kaga jawaabi doonaa muuqaalkan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub AI ama artificial intelligence wuxuu sare u qaaday qiyaastii 16% wax soo saarka caalamiga ah wuxuuna dhiirigeliyay hal abuurnimada iyo sidoo kale abuuritaanka shaqooyin cusub oo dhaqaale laga sameeyo waxayna kor u qaaday 7% kordhinta GDP-ga sanadlaha ah sidoo kale waxa iyadana xusid mudan shirkadaha ka ganacsada software-ka ayaa la sheegay inay ka sameeyeen dhaqaale kor u dhaafaya 430 bilyan oo dollar taasi waxay muujinaysaa inuu meelo badan isbeddello waaweyn kaga sameeyay dunida wax soo saarka iyo dhaqaalaha xilligan maanta la joogo adeegsiga AI-da ayaa maalinta ka dambayda soo kordhaya laga soo bilaabo martamihii sanadkii la soo dhaafay 2023 oo ahaa kacdoon markaasi aad u sarreeyay uu sameeyay artificial intelligence-ga ayuu ganacsiyada kala duwan ku tartamayeen in uu ganacsi walba ku soo biiriyo ganacsigiisa qayb ka mid ah artificial intelligence-ga madaxda maamulayaasha goobaha ganacsiga ayaa sheega inay inta badan adeegsadaan ChatGPT ayagoo adeegsada qoritaanka riboodyada qoritaanka copywriting-ka emailiska iyo waxyaabo badan oo markaas la xiriira shaqadooda inta badan applicationada sidoo kale aan ku isticmaalno taleefanadeena ayaan aragnaa in bilba bisha ka dambayda lagu soo dirayo qayba artificial intelligence ama AI si markaasi ay wax badan uga bedelaan ama ay u sii haystaan macaamiishii ay hore u haysan jireen waxa kale oo xusid mudan shirkadaha OpenAI oo ah shirkadda soo saartay ChatGPT iyo Google oo iska leh Gemini AI ama Bard AI intaba oo dhawaan soo saartay Lumiere AI ayaa ah shirkadaha markaasi ku tartamaya dunida saaxadda ayaa sidoo kale waxa ku soo biiray shirkadda Cognition oo ayadana soo saartay AI-ga loo yaqaano Devin oo ah software engineer-kii AI ah oo dunida ugu horreeyay la soo saaro iyadoo markaas lagaga maarmayo lagana yaabo in malaayiin kumanaan markaas shaqaale ku takhasusay cilmiga software engineer-ka ay shaqo la'aan ku dhacdo Devin AI dartiisa iyadoo ay muuqato faa'iidooyinka ballaaran oo markaas AI uu leeyahay horumarka iyo isbeddelka dunida ka socda waxa ayadana xusid mudan in ay jirto cabsi ballaaran oo markaas shaqaalaha ay ka qabaan ayagoo markaasi ka cabsanaya in ay dhici doonto maalin in uu shaqada ay hayaan uu kala wareegi doono artificial intelligence ayagana meel cidla ay ku soo dhici doonaan ay shaqo la'aan ku dhici doonto shaqaale badan ayaa ku howlan sidoo kale inay ka wareegsadaan shaqooyinkii hore u hayeen ayagoo markaasi ku biiraya saaxadaha AI-ga si ay markaasi shaqo la'aan isugu dhicin cilmi baaris lagu sameeyay in ka badan 600 oo markaasi maamulayaal shirkadeed ah ayaa sheegay in ay ayagu sidoo kale ay cabsi badan ay ka qabaan in shaqada maamulnimo ay markaasi kala wareegi doonaan AI iyadoo markaasi goobahooda ganacsiga shaqaalaha ka shaqeeya farmeelood meel ka mid ah ay u diraan goobaha AI-ga ama artificial intelligence-ga si markaasi ay ugu soo biiriyaan shirkadooda waxaa muuqata saddexda qayb ee soo hartay in laga yaabo in laga maarmo digniinaha khubrada dhanka artificial intelligence-ga oo ay ka digayaan in ay dhici doonto shaqala in ku imaan doonto bani'aadamka ayaa muddooyinkii dambe soo siyaadayay cilmi baaris ay sameeyeen in ka badan 2700 oo cilmi baare bishii January ee sanadkan 2024 ayay markaasi soo jeediyeen in AI-ga ama artificial intelligence-ga uu ka wanaagsanaan doono kana qiimo jabnaan doono bani'aadamka sidoo kalena uu ka shaqo wanaagsanaan doono iyagoo sidoo kale sii raaciyay in marka la gaaro sanadka 2116 laga yaabo amaba ay qiyaasayaan in shaqaalaha dunida ka shaqeeya 50-50 uu noqon doono oo yacni 50% ay noqon doonaan shaqaalaha dunida ka shaqeeya artificial intelligence ama robots sidoo kale 50 ka soo haran laga yaabo haddii aysanba ka yaraanin in markaasi ay bini'aadamku ay qabtaan taasi waxay muujinaysaa dhibaatada ballaaran oo markaasi laga yaabo artificial intelligence-ga inuu ku keeno goobaha shaqada iyo nolosha bini'aadamka intaba inkastoo ay jiraan walaacyo badan oo laga qabo luminta shaqada oo ku imaanaysa shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeeya ganacsiyada shirkadaha dunida saamaynta AI-da ee faa'iidada iyo kobca dhaqaalaha ayaa ah mid ayadana aad u muhiim ah iyadoo oo suurtagal ah in dib loo habeeyo qaybaha kala duwan oo la abuuro fursado cusub inkastoo ay jiraan walaacyada kala duwan oo laga muujinayo artificial intelligence-ga iyo dhibaatada laga yaabo inuu ku keeno bini'aadamka sida ay khurahan sheegayaan waxay noqon doontaba haddii la noolaado waa la arki doonaa ayaa dhanka kale ayadana ah ilbaxnimo iyo markaasi tartan cusub dunida oo horseeday dhalinyaro tartanku ma istaagayo waxaa si habboon in aan tartanka geesteena aan ka raacno aan ku soo biirno saaxadda iyo tartanka ka socda garaadka macmalka ah ama artificial intelligence-ga geedba geedaa ka weyn wiilna aabiis ayaa ka weynaya leeyahay haddii aad ka mid noqoto dadka markaasi sameeya garaadka macmalka ama artificial intelligence-ga soo saara waxaa hubaala inaysan qofkii sameeyey AI-ga soo saara
saaray inaysan isaga shaqo la'aan ku dhaqan doonin maxaa yeelay waa robot waa teknolojiyad waxay u baahan yahay qof gacanta ku hayda oo markaasi maintenance iyo ku samaysa insha Allah waxaan rajaynayaa muuqaalkan wuxuu inaad ka faa'iiday faa'iidooyinka uu nooleeyahay garaadka macmalka sababaha shaqo la'aanta laga yaabo inuu bini'aadamka ku sababo sanadaha soo socda iyo hadda halka uu marayo sida goobaha kala duwan ee ganacsiga uga faa'iideystaan iyo sidoo kale maantaba inaad adiga ka faa'iideysan karto oo aad business online cusub aad ku bilaabi karto waxyaabo badanna uu ka caawinayo insha Allah muuqaalka xiga ayaa inoo ballana haray loobin inaad nagula saaxiibto bartan aad naga daawanayso si aad nagu dhiirigeliso inaan muuqaalo aynkan oo kale aan soo badino waxaan ka tagayaa sidaas nabadgelyo